بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كل وناكسن داوديال كسر دوادا برنامج كني دبك هذا برنامج كدبك هذا وحن قيبتن كجا هذا دونا هري وحن وقصوا هذا اللي برنامج كان كهرية إن مجال ذا تشجيع حرمت الدولة ديجان كصومالي ذا أي جروبا كلا دوان وأقوياء كديجان كصومالي ذا حكومة ذا يولي بقى ورهذا السياسة ذا مرتكز سعودي أي كوقبتين ضد علميات أي كوشاجان إن لجا هذا يو in Soomaalida laga wacyigeliyo hadallada nacaybka keenaya iyada oo waliba jaamac oo barnaamijkaasi si faahfaahsan uga hadlay uu sheegay waxyaabaha maaragtay laga hortagaya in axmaarada iyo ku dul noolaanshaheeda deegaanka Soomaalida in laga hadlo la diidan yahay maanta magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida waxa ka dhacday arrin runtii dadka Soomaaliyeed aad u xaragelisay meel kasto ay joogaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida arrintaasi waxa ay ku saabsan tahay kadib markii ay koox dhalinyaro ah oo abaabulan isku dayeen in ay burburiyaan taaladii ku taalay bartamaha magaalada Jigjiga ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed dabcan laba meelood ayuu taalooyin ku leeyahay haatan inta dhisan ee aan ognahay inkastoo ay taalooyin kale jireen haddana kuwa haatan dhisan waa tii Muqdisho oo dib loo dayactiray dhawaan iyo waliba mid haatan ka dhex taagan magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida oo uu hirgeliyay maamulkii kan ka horeeyay ee Cabdi Maxamuud Cumar haddaba taaladaasi ka dhex taagan magaalada Jigjiga ama faras magaalaha ku taala ama taalada sayidku sideedaba dadka Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay baynu eegi doonaa sidoo kale falkaasi ay ku kaceen dhalinyaradaasi abaabulan ee qoomiyadaha kale ee Ethiopia ka soo jeeda ayaynu eegi doonaa dhalinyaradan dadku waxay sheegayaan inay tahay qoomiyadda axmaarada oo aan horay in badan uga soo warranay oo aan waliba barnaamijkan dhabka hadal markii aan bilaabaynay waxaan ku bilownay oo ahaa damaca axmaarada ee deegaanka Soomaalida barnaamijyo badan oo damacooda qallafsan ama gurracan ee deegaanka Soomaalida ku aadanna aan horay wax badan uga soo hadalnay haatan waxaad moodaa inay meeshii ugu dambeysay marayso oo ay isku badayayaan inay burburiyaan taaladii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ee Jigjiga ka taagneed jaamac soo dhawow maanta qoomiyadii axmaaradu dhalinyaro walaalahan baa waxa la yiri taaladii sidaan sawirradana ku aragnay iyagoo buris la dhacaya taaladii Facebook-yadii inta badan xukuumadda lagu taageeri jireen durba waxa lagu soo wada qoray tikraab ay nimankan bal arrinta ka hor yahu waxa weeye horta waa ilaahay mahadi oo dadku indhana waa qabaan aqlina waa qabaan wax walbana waa og yihiin oo maanta maaragtay markii dadka maaragtay sidii la doono wax loogu sheegi jiray ama waayihii dadka wixii la raba loo sheegi jiray lama joogo ummaddu way og tahay xaqiiqda iyo waaqaca waxaase masiibo ah oo masiibo hadda ka weyn oo kale oo waayahan aan isleeyahay way dhiciba aanan garanaynin in muxaramaadkii adduunka qolo walba muxtarimaad bay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala muxtarimaad buu leeyahay waxaa jira oo ugu talagalay ama xuduud u sameeyey in aan halkaa loo soo dhaafin ciddii halkaa dhaaftay oo xuduuddaa gudubtana uu ugu goodiyey ciqaab adag aadamaha sidoo kale iyagana wuxuu u sameeyey yacni waxyaalan iyaga u gaar ah qoomiyad walba ama bulsho walba oo iyaguna ay ixtiraamaan oo maxaan ku dhahay talama taabtaan xaggooda ka ah oo qoomiyadii ama ummadii ama dalkii ama dadkii laga taabto ay tahay dad maxaan ku dhahay si toos loogu xadgudbay ayna waajib tahay in ay ka dhintaan oo waliba ay ka dhamaadaan intii ay dhagxumo ku noolaan lahaayeen maanta dhagxumo ka weyn oo shacabka deegaanka Soomaalida la soo darsi lahayd anigu ma garanayo wiil axmaaro inta soo kalahay saaka in uu taaladii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan loo dhisay ee Jigjiga bartankeeda ka taagnay inta dubbe ama buris u la fuulay inuu yiraahdo waa burburinaya isagoo oo kaligii ah anigu dhagxumo ka badan ma garanayo wax qof Soomaali oo ka dhiman lahaa oo ka xunna ma garanayo Soomaali garan waayo waa taariikhda Soomaalida taariikhda ay leedahay Axmed Guray Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Xaawataako iyo dhagaxtuur dhagaxtuur waa maalin ma aha qof
dhagaxtuur maalin bay waa maalin bay ahayd haa maalinkii dhagax tuurka la yidhaahdaa soomaalida garan waxaa weeyaan saddexdaas shaksi waxay ka mid yihiin yacni jiritaanka soomaalinimada waxa lagu ilaaliyo weeyaan taariikhdooda axmed gurey sayid maxamed cabdillah xasan iyo xaawo taako saddexdii mid waaba laynagu haystay oo axmed gurey buu ahaa moogtahay oo waxaa weeyaan qolyahan oromada ah yaa iyagu moogtahay taallo meelaha uga samaystay harar meelaheeda laakiin dhibba maleba iyagu dee dhib kumayna haysanino annaga ahayn iyo nin ungaa hore wuxuu ahaa un soo halgamay buu ahaa oromo ahaa bile iyagu oromo ahaabay ku dhihi oo ahaa waxay rabaan bay iska sheegaane marka saddexdaas halyey ee labana ay ragga tahay midna gabadha tahay waxa weeyaan waa dhidibka taariikhda soomaalida waa jiritaanka ummadnimada soomaalida waa taariikhdii kala duwaneyd ee halgamadii kharaadhaa ee dadkani ay usoo mareen jiritaankooda iyo gobanimadooda anoo marka ogsoon oo ku qanacsan in jigjiga ay gumaysi ku jirto haddana ma aha wax la qaadan karo dadkii in nasabyadoodii iyo jiritaankoodii iyo dadnimadoodii ilaa xad heerkaas loogu sii xadgudbo oo la dhaho maba jirtaanba oo haddana cidda dhahaysa ayna dawlad ahayne uu yahay shaksi wiil yar oo maxaanku idhahdaa ta laga yaaba xalayba inuuna seexanin oo intuu soo kacay dubba soo qaatay la fuulay sayid maxaa waan duminayaale waan burburinayaale oo maxaanku idhahdaa haddana un indhaha laga dhowrayo anugu gunnimo ka weyn oo qof bini aadani uu qaato ama ummadi ay qaadato horta anugu ma garanayo gunnimo ka weyn in maanta sayid maxamed cabdillah xasan jigjigo bartankeeda wiil axmaaru uu buris ula fuulo oo uu la dhaco taalladiisii oo uu ku burburiya halkaas oo dhaho waa burburinayaa oo maxaan ku dhahayto un isagii oo haddana xaragoonaya uu iska tegey ma waa la qabtaa la yidhi soo agara dad baa meesha ugu yimid markaasuu soo dayay oo caar buu iska baxay kadibna waa la qabtay booliska loo dhiibay un sooma in meesha lagu dilay maya ma isleedahay adigu hadda adaanba ku weydiine ma isleedahay taalooyinka minilikh iyo adigu nimankii axmaar meelaha uga taagan ma isleedahay qof soomaaliya intuu kor istaagu xitaa dhawri karaa bal iska daa inuu wax ku tuure inay hawa ka gasho inuu fuuro ha ii dambayso nolosha lagu diban lahaa intuu saa u fiiriyo inuu dhaho yar maaragtay indha cadha ku jirta lagama yaaban xataa qof bini aadana meeshan ku dhintay lama dheheen bini aadamku meeshuu kuu joogo inaad u joogtaa muhiim ah axmaaro waxay tahay waan ognahay anigu waa cadow iyo waa la jecel yahay iyo waa saaxiib midna dhihi maayo waxay tahay soomaalidu way og tahay annagana waan ognahay qof walibana wuu og yahay ficilada wax hadda dhiman yacni inay guryaha dadka ka saaraan sidii maaragtay israa'iil oo kale oo reer degan inta loo yimaado la dhaha guura saaka oo guriga ii baneeya waa intaa unbaa hadhay aniga aragtidayda sidaa daraaddeed shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga iyo guud ahaanba deegaanka soomaaliyeed maanta hadda awal hore xaaladdu jigjigay joogtay maanta waxay degeen oo axmaara ay degaysaa oo ay guryo ka dhisanaysaa oo ay boosas ka jeexanaysaa shaygoosh iyo birqod iyo maxaanku idhahdaa jidkii dheeraha laamiga ahaa oo dhan iyo wada cabiranayaan nin walba rabaa inuu dego lagamana gadi karo lagamana canshuuri karo marka axmaaro weli kow ma joogto innagana madaxweyneheenii iyo dowladdeennii deegaanka soomaalida intay shir qabatayba waxay leedahay waa inaan axmaarada jeclaanaa axmaaradu waa walaalaheen cadownimada iyo maxaanku idhaha waxaas waa dembi qofkii axmaaro ilqalloocan ku eega waa nacayb weeyaanoo waa la xidhayaa tallaabaa laga qaadayaa eegya isna waxay taasi marka ku dhiirigelisay oo ay maxaanku idhahda geyaysiisay maanta wiil keligii ah oo aan mid labaad lahayn oo xabashii intuu tag dhaho fuulo taalladii sayidka inuu dubbo ku bilaabo bashirka jigjige wuu ka socdaa shirkan sheegaynay hadda ayta barnaamijkan ku sheegaynay weli wuu socdaa weli dadka waxaa lagu wacdinaya axmaaradu inay walaalehen tahay awliye inay tahay in maxaanku idhahdaa la soo dhoweeyo ay bannaan tahay maxaanku idhahdaa in xitaa guryaha looga guuro oo si aan u muujino isjacayl iyo isdhexgalka qoomiyadaha marka lagu yidhaahdo yani isdhexgal iyo qoomiyadda kale ha soo dhaweyso innaga qoomiyadana inama soo dhaweyso laynoomana aqoonsana etoobiyaan mana nihin haddaad dhahdo etoobiyaan baan ahayna iyagaa lafahaaga kuu diliba soo ma garan innagu waxaan nahay reserve area baynu nahay
dhul loogu talagalay in Ethiopia laga difaaco waxa nacfiga ah ee yaalana laga qaato soo garan shaqaalaha muhiimka ah gaadiidka dhammaan wax kasta oo macquula Axmaara gacanta ku haysa inaga waxa la inoo sheegay baarlamaan qaata maxaan ku dhahaa 13,000 oo riyaal qaata bishii iyo wasiir la mid ah oo wax ay bedeli karaan iyo wax ay soo kordhin karaan aysan jirin waxaan arkay hadda mid bog ka mid ah bogagga maaragtay uu ku qoran yahay af xabashi uu ku qoran yahay walba waa Yohannes Burhano wax noocaas uu ku qoran yahay oo af Soomaali lagu soo qorayo oo la leeyahay yani Sayid Maxamed Cabdullah Xasan indhihi noo 5 ah yaan duminaynaa juuran ma dhihi kartaan oo 30,000 oo askari oo ciidana yaa jigjiga 4 dhinac iiga degan waa run waa xaqiiq laakiin dad dhimasho u socda hadii la arko maalinka doqonkaaga la dilo hadii aadan ka dagaalamin waxba kuma yaalaan maxaa kala weydiin hagaag aad baad mahadsan tahay bogagga bulshada dowladda deegaanka Soomaalida lagu taageero tusaale waxaan soo qaadan karaa Siraaj iyo geedka nabadda oo kale iyo waxaa lagu soo qoray Tigreeb ahayn nimankani marka hore arda wax kale weydii wax kale aan ku sheego weydii kaaga jawaab weydii ha way aad baad mahadsan tahay waad ka kaabsatay Soomaalida waxaa jira ma taqaanaa waxaa jira aan suura gal ahayn in laga jawaabo annaga Ilaahay baan abuuray aqli buu nasiiyay aqoon baan baranay waxbaan baranay manihin dad maxaan ku dhahay geel lama joogno hadda geeli kamaan waa horan ka imid geel anigu dhow waxaan jeclaa 20 sano ka hor yaa igu dambeysay geeli soo garan marka wax badan baan ogahay marka ninkii maxaan ku idhaahdaa halkan kale Axmaaradu waa walaalaheena hal la jeclaado guryaha hal looga baxo oo xitaa islaamaha in loo furo ku qanacsan oo raba inuu wacyigelinta dambe ku soo daro wuxuu soo qoray ma aha inaad weydiiso kaasa soo qoray aan ku sheegahay marka waxa weeyaan waa ninkan aan jeclaano Axmaaro sayidkan in Soomaalida marka maxaa la gudboon maadaama hadda Soomaalida waxa la gudboon way og yihiin Soomaalida waxa la gudboon ma oga Soomaalida deegaanka joogta maxaa la gudboon kama hadlayo Soomaalida hadda anigu kuwa ma ka hadlayo Soomaha waxa la gudboon Soomaalida taaladii ku taalay Sayid Maxamed ee ku taalay bartamaha magaalada Jigjiga waxa idin la gudboon ma yeelahayaan waka inta loogu imaanay fiiri nin naftaada u jeeda wax kala kuma qancayo Axmaaro ma rabto nolosha qof Soomaaliya ama deegaanka ha ku noolaado maxaa deegaanka kaliya kaga ordi ama deegaanka ha ku noolaado ama Djibouti ha ku noolaado ama Gaaris iyo ha ku noolaado meesha la yiraahdo Muqdisho Axmaaro nin Soomaali laakiin way u kala horeeyaan maalinba mid baa la cunaya Soomaalida garan sida u kala horeeyaan un baa maaragtay wax loo kala sheegi mooyaane waxa weeyaan Soomaaliya horta waa isugu mid okay dadka Soomaalida hadaan dhahno waxaasa idin la gudboon ee sida yeela oo sida ma yeelayaan way og yihiin waxa la gud inay dhintaan inay dhulkooda difaacdaan inay maxaan ku idhaahdaa ogaadaan waxan dalkan inay iyagu leeyihiin wiil yar oo maxaan ku idhaahdaa aan ka yimid buuraleyda ka yimid oo maxaan ku idhaahdaa wax ka yaala Jigjiga aysan jirin oo laga yaabo shalay isagoo cagacad inuu soo galay yaa maanta ugu arriminaya oo baad ka qaadaya wasiir walba wiil Axmaar intuu yu ka qaadaa baad horin bay isugu xiran yihiin group bay isugu xiran yihiin dawladda lacag siisa deegaanka Soomaalida shaqa abuurka iyada u sameeysa wala soo wargaliya waxa la group dhalinyaro ah oo intaas oo qof ah ayaa meeshaas joogta meel hebla joogta way isku xiran yihiin hebel baa gudoomiye waa hebel la treasure buu yahay hebel la waxaas u yahay la socda madaxweyne oo saas yeela wasaarad baa loo amray haddana wasaaradda xagga wareysa waa loo amray wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga 2 milyan oo lacag haysanaysa حليه وكوح كبدا عكتا وحافظة شنات كدسة سنقدر لعكتنا جنعسي يا دقالة يا اسمه كوسا سنة أيام حمالي يا حوكستنا مجالات شيء قف صوماليا لو ما أقول وشيء سنقدر ضد كان مركا يجان ضد أهين صومالي ده نينك أم بابلي انتو كحمالي كرين تونكيس أن كساري كرين محن كل هذا تشوان لوس أن كساري كرين يا كورن هذا شيء لو تلين أيو isagu ogol taa markuu tagana leeyahay ma aha baabili deegaanka Soomaalida ee orad aad maxaan ku dhahay deegaanka Soomaalida aad iska daa meel kale ha sheegin Jigjiga baabili oo boqolkiiba 90 ay Soomaali tahay deegaankeeda oo aan ognahay dadka caanaha keenay hebel ay yihiin
yaan loo ogolayn muwaadinkii soomaaliga ahaa inuu ka xamaasho kuwii xamaaliga ahaa lasoo wada caydhiyo hoteeladoodii maalin dhaweyto yaa allah yaa ummadta ay ku badbaadeen marka waxa weeyaan soomaalidu iyadaa isdulleynaysa qoom ilaahay ma dulleeyaa layidhi ilaa iyagu ay isdulleeyaan dadkan soomaalidu inagaa kow ka ah inagaa isdulleynay inagaan ilaahay ku xidhnayn inagaa axmaaro iyo etoobiyaan ka cabsanayna inagaan xuquuqdeenna iyo xaqa inaga maqan aan doonanaynin inagaan rabinba inagaa ku qanacsan inta carruurta iyo naagta lanaga qaato inaan saacada sii noolaano sooma garan marka dadka aynu waxaas aynu ka qaayibnay waxay doonaan inay sameeyaan xaq bay u leeyihiin laakiin maalinkay arkaan dad nool oo xayi ah oo jooga oo maxaan ku idhahdaa dalkoodii iyo dadkoodii u soo jeeda maalinkay arkaan markaa way kaa istaagi waxbay ku ogolaan aad baad mahadsantahay jaamaco waayahay aad baan uga xunnahay waxaa ka dhacay maanta jigjiga dadka reer jigjigana waxaan leenahay sharaftiina iyo karaamadiina difaacda wallaahi in arrintan hadday saan kusii socoto in maaragtay ha in aan maaragtay jigjigaba laydin hadhcad laydinka saaraya sharaftiina difaacda horey baanu uga waranay marar badan oo kala duwan damaca axmaarada ee deegaanka soomaalida gaar ahaana jigjiga aanu intaasoo barnaamij aan ka samaynay hadday noqon lahayd dhabka hadal iyo xog iyo xaqiiqaba aanu in badan kaga hadalnay laakiin dhegihii maxaa la odhan jiray dhegahedii wacdoon baa yaa wax maqla marka soomaaliyay deegaanka soomaalida idinkaa iska leh deegaankan waa deegaankiini marti kuma tiidin axmaara deegaanka iskama leh in maanta ay iyada oo maaragtay madaxa duuban intay fuusho taaladii sayidka ay burus la dhacdo runtii sharaf dhac ka weyn oo la idinku samayn lahaa ma garanayo welina hadda aada leedihiin qofkii waa la qabtay oo ciidamada ammaankaa loo dhiibay marka iyo tigreeb u ahaa marka waxaan idin leenahay ama dullinimadan aad qaayibaysaan ama dad baad noqonaysaan iska dhiciya axmaaradan iyo balaayadan ku dulhabsatay aad baad mahadsantahay assalamu calaykum